dadkii aflaxay ee liibaanay ee guulaystay ee caalamka hogaamiye muslimka maxay ku guulaystay waxaad ku ogaanaysaa akhris baad ku ogaanaysaa waa sabab qofku akhlaaqda wanaagsan uu ku kasbanayo iyo dhaqannada wanaagsan ay loo baahan haddii aad niyo wanaagsan aad wax ku akhri maadiya diini labadaba ajar badan ayuu ilaahay aakhira kaa siin maanta ka caafimaadka baranay ee niyadiisa wanaajinaya doonaya muslimka inuu ku daweeyo waayo marka dee jirku caafimaado ayuu cibaadaysanay jihaadaya muslimka difaacaya dadka wax u qabanaya waxa weeye caqligiisa ka shaqaysiinaya wax baranay ka akhrinaya kutubta caafimaad inuu dadka muslimiinta ilaahay u cibaadaysanaya daweeyo saacad kasta oo kutubta midisika u akhriyayo ilaahay ajar buu ka siin hadduu dee qaala allahu iyo qaala rasuuluhu iyo cilmigii shareecadana dee hadalkeeda bad hadduu injineernimada kutubteeda u akhrinayo muslimku guryo ay harsadaan iyo meelo ay ku cibaadaystaan goobo ay wax ku bartaan inuu u dhiso intaa uu wax dhiganayo wax akhrinayo ajar buu alle subxaanahu watacaala ka siin marka akhris waa wado lagu kasbanayo xasanaad iyo ajar maalinta qiyaama alle subxaanahu watacaala uu kasbanayo akhrisku waa sabab qofku uu ku kor noqonayo yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waladiina uutuu lcilma darajaat akhriska markaynu ka hadlay waa waxyaabaha ugu habboon ee nafta loogu raaxeeyo madadaalana laga helo oo adigu aad kala dooranayso waxa naftaadu ay ku raaxaysanayso akhriska markaynu ka hadlayno qof guulaystay ama hal abuur samaynaya ama meel gaadhaya diin iyo adduunyo mid kastaba waxa weeye akhrisunbuu ku gaadhaya qofkaan wax akhrinna waxa weeye meel ma gaadho akhriska ahmiyadiisa waxaa ku tusaya cimrigaagi baad cimri kale u geynaysa oo maanta 10kii sane la soo dhaafay ama 100kii sane ugu dambeeyay taariikhdii haddii aad soo akhrido 100kaas sano garaadkeedii iyo taariikhdeedii iyo aqoonteedii ayaad yeelan haddii aad nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada iyo siiradoodii aad akhridaan 1440 sano cimrigeedii baad yeelan haddaad hore u sii socoto ambiyadii tagtay nebiyullaahi aadam noloshu halkay ka soo bilaabantay makhluuqa laga bilaabay ayay aqoontaada iyo garaadkaagu noqon waxaa ku sugan akhriska oo ahmiyadiisa ku tusaya qofka wax akhriya wuxuu ixtiraamaa wakhtigiisa uu ilaaliya haddii kale wakhtigiisa wuxuu kaga lumaya fadhi kudarri buu kaga lumaya akhriska waxaa ku sugan mujtamaca in la bedelo oo qofku wuxuu soo akhrinayo mujtamacaadka meel gaadhay waxa ay ku gaadhay dabeedna waxaa u fududaanaysa mujtamaciisa inuu hagaajiyo marka uu wax akhriyo akhriska markaynu ka hadlayno waxay yidhaahdaan nimanka reer galbeedka idaa aradta an tuscida insaana faxabib ilayhi alqiraa'a haddaad doonayso qof badhaadha iyo liibaan inaad geliso wax kale ha u qaban waxaad jeclaysiisaa sida wax u akhrin taasuu jeclaysiin ninka la yidhaahda cabaas alcaqaar oo mufakiriinta islaamka ka mida ayaa wuxuu yidhi anigu akhriska uma daneeyo inaan wax qoro wuxuu yidhi akhriska uma daneeyo cimri ziyaada inaan ku helo laakiin wuxuu yidhi akhriska waxaan u daneeya waayo wuxuu yidhi hal waqti iyo hal nolol baan leey waxyaabahan u baahanahay cimriga iyo waqtiga aan leeyahay kaga wada bogan akhriskuna wuxuu macno u yeelaya oo qiimo u yeelaya oo dhadhan u yeelaya waxa weeye nolosha keliya ama waqtiga keliya aan haysto ayuu wuxuu u yeelaya qiimo u yeelaya wuxuu anigu uma baahni saacado badan cimrigayga in laygu daro oo waxa weeye 100 sano iyo wixii la mid ah anigu aan u danayn laakiin waxa uu saacadaha aan haysto inaan macno u yeelo oo aan wax akhriyo oo aan aqoon badan ziyaadsado tan noocaas ayaan doonayaa